نفحته ملائك sawiro balada dad badan baa waxay isugu yimaadeen sana meel ka taagan qaar baa buuqaya kuwa baryada ka dhacaysa qaar way ku doofayaan sawirka meesha yaalla hoostiisa waxa dhiig u qulaya wadiyaabaysa yacni xoolaha loo qalay farabadnaantooda halkan mid kale ayaa barya dheer ku baryatamaya islaan ama hooyo waxay wadataa inan yar oo ay dhashay oo xanuunsanaya korbay u qaadqaadaysa ilaahayga iyo caafi ay leedahay nin halkana islaantiisii ayuu jiidaya oo dhali weyday adigu cibaadadan ayay ka tahay xaaladda la yaab kale wiil dhalinyaro ah ayaa meel dhexe taagan waxa uu niyadda ka leeyahay ma dhici kartaa oo dhab ma noqon kartaa inuu kani noqdo allihii dhabta ahaa ilaahay fidiyey arladan nagu hadhiyey samadan geeskiisaa bidix ayuu eegay isagoo sidaa u dadaawanaya oo fakaraya waxa uu meel dheer ka arkay wiil da'aadiisa ah oo dhinaca geesas ka fadhiya wuu ka dhex baxay wuu socday ilaa uu dhowaaday wuu salaamay wuu iska ag fadhiistay islamay hadlin waxay iska daawanayeen dadkan bilaashka ku daalaya cabaar ka bacdi waxay maqleen tallaabooyin dhankooda ku soo wajahan oo wiil kaloo saddexaad ayaaba u yimi haddana mid afraad mid shanaad mid lixaad adigu 10 may gaadhin nimankaas 8 7 meelahaasa lagu qiyaasaa laakiin 10 maysan gaadhin sidii loo wada fadhiyey mid ka mida wuxuu yidhi war maxaa dadkay naga soo soocay cidina uma jawaabin meesha waxaa ku cad nin waliba inuu wax qarsanayo cabaar kadib waxaa jawaabay mid wiilashii ka mid ah waxa uu yidhi aniga wax kale igama soo saarin inuu sanamkani yahay been mooye ilaaha dhabtana uu yahay allihii fidiyey arladan cibaadadana uu isagu u qalmo intaasuu yidhi uuna aamuso inamadii kale way yaabeen war waa maxay dhiiranaantani mid kala hadlay anuuna kula mid baana ilaa ay kulligood isku waafaqeen arrintoodii adigu dadkaa maqlay boqorkii ka talinayay magaalada amashtaa la gaarsiiyey wuu yeedhay war maxaad dadka uga dhex baxdeen buu yidhi maxaad sida dadku ugu cibaadaysaneen u cibaadaysan weydeen cidna uma jawaabin way is eegeen dadkii meesha joogay oo dhami way aamuseen jawaabtooda ayaa la sugayaa wiilasha mid ka mid ah intuu gowsaha qaniinay ayuu yidhi sida ayadu sheegtay waxaan uga soo qaybgeli weynay amaan uga dhex baxnay annaga ilaahayagu waa allaha dhulka iyo samawaadka cid aan isaga ahayna baryi mayno lan nadcuwa min duunihi ilaaha cid aan isaga ahayna baryi mayno waxaas dareensiisaa ilaahay saacadda ay nimadaasi u bareereen shirkiga iyo daaquudka la socodku la socday isagoo ku fadhiya cashrigiisa 7 sano korkooda maqalka uu maqlayo marka ay leeyihiin ilaahayagu waa ilaaha iska leh arlada iyo samawaadka cid aan isaga ahayna baryi mayno lan nadcuwa min duunihi ilaahan laqad qulnaa idan shatata sidoo kale alla wuxuu yidhi waxaan isku xidhnay qulubtooda markay istaageen ay yidhaahdeen ilaahayagu waa ilaaha iska leh samooyinka iyo arlada dadkii baa buuqay boqorku wuxuu ku yidhi haddii aan beri idiin yeedho aad ku sii dhegnaataan caqiidadan baadilka aad aaminteen waxaan idin marsiin doonaa ciqaab adag kadib uu weriyey adugu meeshu way ka soo baxeen waxay isweydiiyeen maxaynu yeelnaa suurtagalna maaha hadda inay ilaahay ku gaaloobaan iyagoo ka baqaya addoommo yaryar oo isagu abuurtay waxay isku raaceen inay ka baxaan magaalada way adag tahay meel aad ku barbaartay dadkaagii joogaan inaad ka tagto siday ahaataba meel ayay ku ballameen saacad hebelna aynu isnimaadna ay yidhaaheen nin waliba wuxuu aaday xaafadoodii markii la gaadhay wakhtigii
nin waliba wuxuu soo urursaday dharkiisii iyo wixii uu qaadan karayay. waxa uu sugay inta cagtu yara kala degayso. waxay isugu yimaadeen meesha ku balameen. way dhaqaaqeen. intii jidka lagu jiray ayaa la sheekaystay. xageenu aadnaa baa la yidhi. dhul kale, magaalo kale. waayahay ilaahay intaynan joogayna dhulkaas ama magaalada kale aynu aadno. marka xaaladooda la eego inta ka dhiman cumrigooda way joogayaan, kuma soo laaban karaan ama intuu ka dhimanayo ninka boqorkaayo. siday u socdeen mid baa wuxuu arkay god meeshaa ku yaalla. wuxuu yidhi sida aayaddu sheegtay fa'wuu ila alkahfi yanshur lakum rabbukum min raxmatihi wayuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. u hoyda godkaas, ilaahay baa idinku fidin doona naxariistiisa, hawshiina idin dhib yarayn doona. dhib yaraanta ku jirtaa maxay ahayd? god cidlaa aan cida joogin, madow. aan kuu sheego, waxay helayaan ama ay ka helayaan godkaas xabiibkooda oo ay sida ay doonaan u caabudayaan, si ay doonaan ugu tukanayaan iyadoo aanay cidina qashqashaadayn. waxaad dareemaysaa tawakulka ay la imaadeen. waxay u hoydeen godkii, waxay la imaadeen asbaabtii laga rabay. bacdu saalixiin waxay yidhaahdaan asbaabta la kaalay, haddana uu istaaga baryo ilaahay ka'annamaa inaanad waxba qaban. almuhim waxay galeen godkii. wakhtigu xilligaa wuxuu ku beegnaa abbaara 10 oo kale ama gelin hore. way yaro nasteen, kadib way seexdeen. gabalkii baa dhacay, waagii baa baryey, haddana gabalkii baa dhacay, waa kalaa baryey. waxa ay dhacday qoraxdu oo soo baxday 100,000 oo jeer, mana ay soo kicin. lacalla haddii uu qof soo ag maro waxuu arkayaa ey fadhiya albaabka godka ameeridiisa. hadduu gudaha eego waxuu arkayaa dhalinyaro aan toban gaadhayn oo isrogrogaya hurda, haddana indhahoodu furan yihiin. yacnii waa arrin baqdin leh. ilaahay wuxuu leeyahay low idalacta calayhim lawallayta minhum firaaran. haddaad ka soo horbixi lahayd, mid ka baqi lahayd, waadna ka carari lahayd. waa garab istaagga alle uu garab istaagay yeelantiisa. aan u soo laabanno. qoraxdii waxa ay soo baxday haddana oo dhacday 9,000 oo jeer, weli codnimo toosi. way soo baxday haddana dhacday 500 oo jeer. maalintii iyadugu u dambaysay intaanay dhicin, mid ka mid a soo toosay, hareeruhu eegay, waxa uu arkay inay kuwii kale soo tooseen. macnihii hadday saacaddii waxay seexdeen 10 oo kale, haddana waxay soo kaceen xilli qoraxdu sii dhacayso. waxay isweydiiyeen imisaynu joognay meesha. mid ka mid wuxuu yidhi maalin ama maalin barkeed. macnihii daliil cad uma hayaan. waxay isku waafaqeen ilaahay baa og inaga daaya ee mid ka mid ah u dhiiba lacag haynoo soo iibiyo waxaynu cunno. cuntadii baa loo diray. islaali baa layidhi yaanu cidina isdareensiin. waxay u haystaan maanta waa maalintii uu boqorku la ballamay. marka inay islaaliyaan waa gartooda. mid iyaga ka mid ah ayay doorteen, lacagna way u dhiibeen. uu baxay, way ka soo daba kaceen. mar labaad ayay digniintii ugu celiyeen. taxadarka iyo islaalinta uu qabo ayaguu jibaaxay ama duurka. inuu qof arko ayuu iska ilaalinayay. wuxuu soo dhuumaanaystaba wuxuu soo gaadhay suuqii. wuxuu la kulmay meeshii oo sira beddeshay. uu yaraxa xasuustay. adugu almuhim dadkii wax iibinayay mid ka mid ah ayuu ka iibsaday. lacagtii buu dhiibay, uguna ka baxa markiiba. isla markiiba waxaa ka daba yeedhay ninkii dukaanlaha ah. kaalay lacagtani maxay ahayd? xagaa laga isticmaalaa? lacagtan maxaad ka keentay? yaa ku soo siiyey? wuxuu u yeedhay mid kaleo dukaanlayaashii ku xigay abalkaali faarax oo kale. bal ila eg lacagtan maxay tahay? aduu keeraabaa la weydiiyey. xagga keentay wuxuu yidhi shalayban lacagta wax ku iibsaday. suuqii oo dhan hal mar ayuu yamta goostay. wuu aamusay. isagaa jawaab laga sugayaa. waxaa magaalada ka jirtay qiso wiilal yaryar oo diintooda la cararay oo ay ka sheekaynteeda iska dhexli jireen dadkii magaalada degnaa. wiilkii yaraa oo waxaa loo geeyey markii dambe suldaankii ka talinayay magaaladaas. suldaankaas waxau ahaa
suldaan muumina oo wanaagsan. wiilkii yaraa waxaa ku waajibtay inuu sidii ay wax u dhaceen uga sheekeeyo, uga qisooday bilow ilaa dhammaad suldaankii. suldaanku wuxuu sheegay inuu samanka uu sheegayaa uu yahay saman tegay oo lasoo dhaafay, jiil badan ka dambeeyeen, adugu 100 sano ka hor ku dhawaad ahaa. suldaanki waxaa weydiiyey saaxiibadaadii kala meeye, waan ku soo tusayaa buu yidhi. waxaa israacay suldaankii, wiilkii, dad kale oo badan ilaa ay gaadheen godkii. suldaanki waxaa u galay godkii, wiilashii ayuu marxabeeyey, sheeko dheer baa dhex martay. intaanu suldaanku albaabka ka sii bixin waxay ahaayeen kuwo ay jiifkooda naftu kaga baxday. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu la kulan siiyo. aamiin.